Assalaamu calaykum. Waxaan halkan kula wadaagayaa xogo iyo xaqiiqooyin ku saabsan qaaradan madow ee Afrika oo laga yaabo inaadan hore u maqal. Aan ku bilaabay sida ay sheegayaan khubarada in ka badan 3,000 oo qowmiyadood ayaa ku nool qaaradda Afrika. Waddanka Nigeria kaliya waxaa ku nool wax ka badan 370 qowmiyadood. Afrika waxaa ku yaala saxaraha ugu weyn caalamka, wuxuuna cagacagaynayaa ku dhawaad 300 oo milyan meel square, wax u dhigma bedka waddanka Mareykanka. Taas macnaheedu ma ahan in Afrika tahay saxaro iyo lama degaan. Sidoo kale waxaa ku yaala kaynta labaad ee caalamka ugu weyn, taasoo ay ku nool yihiin duurjoog kala jaad ah. Waddanka ugu badan ee Afrika maalgashada waa China, waxaana lagu qiyaasaa xiriirka ganacsi ee dhexmara Afrika iyo China in ka badan 300 oo bilyan sanad kasta. In ka badan 1 milyan oo Chinese ah ayaa ku nool qaaradda Afrika. Waddanka Angola kaliya waxaa ku nool 350 wax ka badan oo Chinese ah. Dhammaan wadamada Afrika waxaa gumeysay dawlado shisheeye marka laga reebo Ethiopia iyo Liberia. Ka hor gumeysiga Afrika waxa ay lahayd 10,000 oo ismaamul, lehna dhaqan iyo luqad kala duwan. Afrika iyo Yurub waxa u dhaxeeya wax ka yar 10 kiiloomitir oo ah biyo mareenka Gibraltar, kaas oo kala saara wadamada Morocco iyo Spain. Labada dawladood ayaa ku heshiiyay inay dhistaan tareen maraya biyaha hoostooda, iskuna xiraya labada wadan. Harada Victoria waa tan labaad ee ugu weyn caalamka, lehna biyo nadiif ah. Sidoo kale webiga ugu dheer caalamka waxa uu dhaca Afrika, dhererkiisu waxa uu gaarayaa 6,650 kiiloomitir, waana webiga Nile. Magaca Afrika waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa Afri, kaas oo ah magac loo yaqaan koox dad ah oo ku nool waqooyiga Afrika. Ereyga ka waa dibgale Roomaan ah, kaas oo loo adeegsado waddan ama dhul. Dadweynaha ku nool Afrika ee ku hadla afka Faransiiska waxa ay ka badan yihiin dadka ku nool Faransa. Wadamada looga hadlo luqadda Faransiga waxaa ka mid ah Cameroon, Ivory Coast, Senegal, Niger, Mali, Madagascar, Gabon, Burkina Faso, Guinea, Benin, Chad, Togo, Djibouti, Rwanda, Seychelles, Burundi, Equatorial Guinea, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Comoros, Tunisia, Algeria iyo Morocco. Afrika waa qaaradda labaad ee ugu dadka badan 5 qaaradood ee kale. 50% dadkeedu waxa ay ka yar yihiin 25 sano. Waxaana la qiyaasayaa in tirada dadka ku nool qaaradda ay labanlaami doonto ilaa iyo sanada 2050.